waxaana aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Barnaamij ama gobolka Sanaag qabanqaabadii iyo hawshii iyo soo dhaweyntii ay ka qayb qaateen haday yihiin dumar haween dhalinyaro maamul ciidamada qalabka sida taliyayaasha maamulka odayaasha waxgaradka intii ka qayb qaadatayba soo dhaweyntii iyo munaasabadii shalay ka dhacday gobolka Sanaag degmada Baran aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweyntaasi waxay daaranayd waftiga inoo yimi oo hogaaminayo garaad jaamac oo muddo badan aynu filaynay inay inoo yimaadaan aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Barnaamij ee hawsha sida mugale uga qayb qaatay oo isugu jira ururada haweenka dhalinyarada cuqaasha odayaasha dhammaan intii hawsha iyo ciidamada iyo maamulkaba intii ka qayb qaatay waa mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baa u mahadsantihiin sharaf weyn iyo magac weyn baa gobolka iyo degmadaba u soo hoyseen soo dhaweynta garaadka ka qayb qaadateen garaadka iyo waftigiisa inoo yimina booqashadooda waa soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay ku soo dhawaada gurigiinni weeye hooygiinni weeye mar labaad way ku soo dhaweynaynaa hooyga jaamacadda maanta oo in xafladda ku hayno iyagana waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda iyo maamulka jaamacadda oo maanta halkan gogashan inoogu fidisay inaguna soo dhaweysay iyo martiqaadkoodaba intaba iyagana waa mahadnaqayaa madaxda jaamacadda iyo dhammaan dhalinyaradooda iyo inta wax ku barataba aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay oo kale kelmadda mahadnaqa ee waftigan inoo yimi shalay soo dhaweyn bay ahayd maantana waa iswaraysi iyo kulankeenii oo ku gabagababi doonaa maanta xafladdan iyada ah oo ay noogu warrami doonaan waftigii inoo yimi oo garaad jaamac hogaaminayay marka iyagana insha Allah safarkooda iyo socodkooda waxaan uga mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo dhul badan bay soo mareen haddana dhul badan baa u harsan oo ay mari doonaan in nabadgelyo iyo wanaag iyo sharaf ay kala kulmaan baan ilaahay uga rajaynaynaa meeshay maraanba waana u hambalyeeynaa garaadka iyo garaadada iyo ugaaska la socda aad bay u mahadsan yihiin booqashada iyo salaanta iyo kalgacaylka ee inoogu yimaadeen in badan baynu sugaynay waqtiyo badan bay yiraahdeen waydii imanaynaa oo nu heegan u ahayn maanta ilaahay ka dhigay marka iyagana karaamo iyo sharaf iyo cisbaan ilaahay uga baryaynaa aad bayna u mahadsan yihiin booqashada inoogu yimaadeen dhammaan dadweynaha reer Barnaamij ama gobolka Sanaagna haween iyo rag iyo dumar iyo maamulba dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhaweynta iyo qaabilaadda iyo sharafka